بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال ليس ويديي qofka uurka leh gabar uur leh sidee loo cilaajeynayaa sidee gabadha uurka leh loo cilaajeynayaa gabadha horta oo uurka leh laba ayay u kala baxaan laba nooc ayay u kala baxaan nooc waa sixir ayaa jirkeeda ku jiro iyo il mise il ayaa jirkeeda ku jiro midna waxa waaye sixir iyo jinni ayaa jirkeeda ku jiro qofta oo maaragtay oo sixir jirkeeda ku jiro iyo il bilooyinka hore maaragtay ilaa iyo bishii shanaad qur-aan kaliya ayaa la saarayaa qur-aan kaliya ayaa la saarayaa iyo biyo tahliil ayaa la siinayaa iyo saliid ay jirka marsato saliid ay jirka marsato ayaa la siinaya kaliya mudaawaadka kale looma ogola inay cabto ha noqoto tii mantaga ha noqoto tii lagu maaragtay lagu calool baxaayay looma ogola inay maaragtay cabto maadaama maaragtay ay baby maaragtay caloosha uu ku jiro babygaasna ayaa wax gaaraya marka waxa kaliya la sameynaya waxa waaye in oo maaragtay saliidda jirka ay marsato saliid qur-aan lagu akhriyay iyo biyo tahliil kaliya inay cabto laakiin biyo badan inay cabto waay qur-aanna waa la saaraya qur-aanku waa lagu wadaaya tan qofta kale oo maaragtay jirkeeda jinni ku jiro sixirna jirkeeda ku jiro qoftaas xataa qur-aan in la saaro ma fiicno lianna waxa waaye hadduu jinni jirkeeda ku jiro waxaa dhici kartaa jinnigaasi maaragtay inuu cunugaasi dhaawac gaarsiiyo oo ka aargudsado maadaama iyada wadaad ay keentay oo maaragtay wadaadka qur-aan saaraya leanna wadaadku wuxuu xanuujinayaa jinniga ayuu xanuujinayaa marka sidaas waxaa dhici kartaa inuu maaragtay jinnigii oo gabadhi ka aarsado cunugaas xataa babygaas inuu kasoo ridaayo dhici karto marka waxa waaye qoftaasi waxa kaliya ay sameyn karto waxa waaye inay qur-aan iska dhegaysato biyaheedii iska cabto saliidna jirka iska marsata laakiin wadaad inay keentay qur-aan oo saaro waa laga fiican yahay xataa mudaawaadka looma ogolo horta qof uur leh oo dhan mudaawaad looma ogolo ha noqdo sixir ha noqdo jinni ha noqdo il mudaawaad looma ogolo lianna wax waliba oo caloosha oo galo maaragtay mantagaasi iyo waxaasi iyo maaragtay inuu babyga wax in babyga uma fiicno marka waxaan sameyneynaa kaliya waxa waaye qoftaasi tahliilaa la siinaya saliida jidhka marsanaysa waxa kaliya farqiga u dhexeeya labadooda tan jinnigu ku jiro waxa waaye looma ogola inay wadaad keensato oo maaragta qur-aan saaro waxaa dhici kartaa waqtiga idoo la fadhiyo qur-aan la saaraayo inay jooga ka dhacdo oo babygaas wax gaaro marka waxaa u fiican qofba haddayba isku og tahay inuu jirkeeda jinni ku jiro inaysan wadaad wacanin iyada kaligeed iscilaajiyeyso qur-aanka dhigaa iska gashato biyo tahliil ay cabto saliid jirka ay marsato waxyaalahaasaa loo ogol yahay kaliya leanna waxa waaye faa'iidadeeda iyo khasaaradeeda ayaa badan leanna jinniga markuu xanuunsado dhaawac xunu ku gaarsiinaya adig iyo babygaaga laakiin hadduu sixir kaliya kugu jiro oo ogtahay inuu sixir kaliya uu yahay oo wadaadkana og yahay sixir kaliya inuu yahay mis-il kaliya inay tahay dhib male inuu wadaadka oo qur-aan uu ku saaro oo maaragta oo kugu wado qur-aanka ilaad ka caafimaadid dhib ma leh laakiin mudaawaad la-aan waay ayadan mudaawaad laguma ogolo shuban ha noqdo mantag ha noqdo toobin ha noqoto xataa toobinta bacd alculamaa way fasaxeen qofta maaragta in la toobo haddii laakiin waxa waaye oo jinni jirkeeda ku jiro waa lagu toobi karaa dhib male toobinta dhib male laakiin hadduu jinni jirkaaga ku jirona toobin xataa laguma ogolo marka insha allah haliska ilaaliyo gabdho badana ila soo xariiray u weydiinaya haddaan qofta uur kale maaragta xaalkeeda waa sidee marka insha allah arrimahan in laiska ilaaliyaa fiican oo maaragtay jinniga maaragtay in lagu ku kiciyo oo maaragta oo markaa xanuunsado oo cunugaas babygaas waxa gaarsiiya ayaa maaragta dhici karto in laiska ilaaliyo ayaa fiican biidn illah alkariim marka insha allah طريقadana lagu wadaaya oo qofka qofta طريقadan uu isku cilaajinaa insha allah subhanaka allah bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh